xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco ayaa ka hadlay xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka ee horyaala golaha wakiilada Somaliland. xildhibaanada oo warbaahinta kula hadlay magaalada Burco ayaa ganafka ku dhuftay qaybaha guddi hoosaadka arrimaha bulshada ee golaha wakiiladu ka keeneen xeerkan, waxaana shirgudoonka golaha wakiilada Somaliland ugu baaqeen in xeerkaasi noqdo mid cadaalad iyo sinaan u yeesha kheyraadka kala duwan ee dalka. waxaana xildhibaanada hadaladoodii kamid ahaa موسى بيحي عبدي wuxuu ilaahay sulansiiyay oo ku guuleystay xeerka inuu hor keeno golaha wakiilada baarlamaanka horgeeyo madaxweynuhu waa wixii aynu dooranay waajibkiisa uu ninkaasi qabsaday. baarlamaanku waa niman in badan soo shaqeeyay, waa baarlamaankii wadanka, waa xeer dejinteennii 14 sanadood bay dhibaato kasta oo dalka timaada ay xeerkaasi hor yaalay oo ay inta ka saarayeen. waanu u hambalyeynaa anagu sida dadka qaar u hadlaan haddaan reer Burcanay u hadlimayne waxaan u aragnaa golaha baarlamaanku rag soo shaqeeyay oo wadanka halbowlihiisa oo maalin walba xeer lafdhabara la horkeenayo. marka laga reebo balaaki iyo guddi hoosaadkiisa, balaaki waxaan dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland ku oo aan reer Somaliland qof ay u cuntamaysaa jirin haba yaraatee ayuu golaha baarlamaanka dhex galay iyo guddi hoosaadkiisa. dooda waxaan ka socoto ee qiimaynta ayaanu ka hadlaynaa. waxaan leenahay mar haddii wax la qiimaynayo 6 gobol eeda ah dee mid waa caasimadii waa Hargeysa, halka la yidhi ha qaadato tiro annana waxaan leeyahay alla caasimad ku xigeen baanu nahay degmadii Burco tiro aanu qaadano qiyaastii 15 hana la siiyo baanu baarlamaanka ka codsanaynaa maadaama magaalada madaxdii labaad nahay. waxaanu kaloo leenahay 6 gobol ee caasimadaha ah eedeedii ha loo daayo, degmooyinka kale ee gobolada cusub ah isku cadaalad ha noqdaan sida Gabiley, Xaysimo, Oodweyne, Caynaba. waxaan leenahay loo kala burin inay cadeeyeen xeerkii uu gariiqaanku soo gudbiyay ee ahaa xasanada oo kale markuu ka hadlayay inaan qodobka aanay ku darin madaxweynuhu, aanay dawladdu ku darin, aanay isagu ku darin in xildhibaan la soo doortay ee xasanada laga qaado oo la yiraahdo goladegan. arrintaas uga mahadnaqna shalay uu cadeeyay gariiqaanku inuu ku darsaday ninka la yiraahdo balaaki iyo guddidiisu ay ku darsadeen. arrintaasina runtii waa arrin aad iyo aad u qaldan. guddi hoosaadka arrimaha gudaha ee balaaki hogaamin ayay ku kooban tahay, waana wax qalad runtii. waxaa kale oo mahadnaqina golaha wakiilada xildhibaanada hadday tahay shirgudoonka iyo hadday tahay xildhibaanada marka laga reebo guddi balaaki iyo guddi hoosaadkiisa oo iyagu runtii khiyaamo qaran sameeyey oo runtii ka been abuuray dawladda iyo madaxweynaha oo ka been abuuray golihii ay ka tirsanaayeen oo ka been abuuray runtii shuruucii dalka inaan wax aan madaxweynuhu la ogeyn oo golahoodu la ogeyn inta xeer ku soo balaaki gurigiisa ku soo samaystay oo qarsoodi ku keenay golaha wakiilada. runtii arrintaasi arrin fadeexad bay noqotay. Somaliland waa xeerkii ummadda dhaqaayay, waa kii ka u dambeeyay jiilka u dambeeyay iyo jiilka maanta joogaba hagaayay. waxaanu leenahay golaha baarlamaanka sida xildhibaanadu sheegeen aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa arrinka ay ku jiraan. waxaanu leenahay xaqiiqada eega, runta eega, dulmiga eega. waxa weeyaan gobolkanu waa gobolkii haddii ku ugu xaasila Soomaaliya, waa magaalo madaxdii labaad Somaliland. waxaanu leenahay waa in hoos loo eego, anagoo dadaal badan ka galnay, waa in howshiisa hoos loo eego. ninka soo doonanaya waa kee haddii uu xildhibaanku xisaanad yeelan waayo ninka balaaki waxaan leeyahay waxa weeyaan waxaan soconayn baad soo qorqortay saaxiib. xildhibaanada ma garanaysaa meelaha kaga dhicin, xildhibaanada baarlamaankana meelaha kaga dhicin, xildhibaanada golayaasha deegaankana meelaha kaga dhicin. waar maanta waxaa hor yaala baarlamaanka xeerar badan oo ku saabsan danta ummadda iyo danta dalka iyo horumarka mid walba, kuwaasoo ay ka mid yihiin xeerarka doorashooyinka, kuwaasoo ay ka mid yihiin midaynta dhaqaalaha. waxaanu leenahay maanta jaanis wanaagsan baa haysataan, madaxweynuhuna wuu idinkala garab galayaa haddii ilaahay ka dhigo war magac iyo taariikh ka taga. Axmed Salebaan Carab Axmed Kaafi
Bulsha TV Burco.